السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا لهانتين باخيارتا وذا نقل سعودتاي هالكني وضيح ويرر ميديا وانا مركله قيبتي النشرادي قصدي اني تحنا هذا الهاون حريستي شهيد شيخ داق قراغا قصدني هو النفتي هوري عبد الرزاق شكري waxaan idin la socodsiinaysaa anigoo ah Maryam Maxamed Khaliif waxaanu galay jawi adag saaxiibaan weeshanaynay ayaa garabkanaga ka baxay barna geeriya nolol kuma hayno barna tunka ayaan ku wadanaa ayaga oo dhaawaca wax biyo ah ma haysano dhulkana ma naqaano tala faraha ayay ka baxday ilaahay mooye cid kale oo gurmad ka sugayno ama meel aanu isleenahay xitaa baadiyo biyo ayaad ka helaysaan ma jiro marka aanu salaadii duhur tukanay ayuu naftii hore dhabuuke intaanadii soo hadhayna feeliyay wuxuuna noo sheegay inaanu u dhabar adeegno qadiyada gobonimo doonka ah ee lagu xoreynayo wadanka Ogaadeniya haddana in loo baahan yahay in la raadiyo shanqadha reer meel degan oo nu ka helo biyo wuxuu u diray laba naftii hore oo wuxuu ku yiri hadii aad aragtaan reer meel degan soo laabta idinka oo leedin arkin ayuuna kula dardaarmay labadii naftii hore markay muddo naga maqan yihiin ayaa waxaan maqalay dhawaqa xabad durba meeshii ayaanu ka loodsiinay sheekha xaaladda sheekhu waa garab loodis socod kale ma laha meeshii waanu ka bedelay meel kale ayaanu geynay in muddo markaanu meeshii joognay ayuu naftii hore dhabuukaygu yiri orado soo raadi ragii waa intaasay ku soo laabteen meeshii aanu ka soo gurnay waaba hadii ay nool yihiin meeshii ayaan aaday intaan meeshii gaadhin laakiin aan ku dhawahay ayay arkeen oo way yeedheen sidii ayaanan ugu tagnay sheekhi waxayna ugu warameen inuu wadanku wada ciidan yahay habeennimo shanqadha reeraha la raadiyo markaanu maqribkii tukanay ayuu naftii hore dhabuuke shayd xay dheer ku yiri orad adiga iyo Cabdirasaaq Israaca oo doona biyo markaanu muddo hal saaca wareegaynay ayaa waxaan maqalnay shanqadha reer meel degan sidaanu u gaadgaatamaynay ayaan reerkii agtiisa fadhiisanay oo waxaanu dhageysanay shanqadha inay ciidan joogaan iyo in kale waxaanu aragnay sigaar meel lagu cabayo qofka cabayna oo fadhiyo geedna madaxa ku hayo markaas buu xay dheeray taabtay dibdib ayaanu baxnay shanqadhi ayay dareemeen oo xabad ayay nagu rideen dhulka ayaanu beerbeer iskugu toornay markay hal xabad rideen shanqadhina ay waayeen ayuu mid ku yiri war xabada ma geedaha ay dabayshu wado ayaad ku riday waan ka baxnay laba xaafadood ayaanu marnay habeenkaas inaanu biyo helo way nagu adkaatay oo waayo waxay ogaayeen inaanu aaga ku jirno annaga oo haraadsan hadalna soo saari la daal darteed biyana aanan wadanin ayaan 10 saac oo habeennimo u tagnay ciidankii xogtii ayaan siinay xay dheer ayaa ku yiri wadanku waa wada ciidan meel walbana way xidhan tahay kadib ayuu naftii hore dhabuuka yiri garabka qabta sheekha oo loodiya meesha fadhima yaale markaan in muddo soconay ayuu yiri sheekhu diji ciidanka dhabuukow sidaas ayaanu ku degnay wuxuuna bixiyay waardigii intaanada kalena waan fadhiisanay maskax iyo jir ahaan ayaanu ka daalay waliba aadna ogtahay in lagu raadsanayo hurdaad tidhaahday indhaha isku qaban maysid annaga oo sidii u fadhinaa ciidankana nin walba uu waardiga hayo ayuu waagi bariyay markaanu salaadii subax tukanay ayaan looditaankii bilownay marka annaga oo dhan waxba ma dhahno sheekh oo daal iyo gaajiya haraad xitaa midka kala la hadlayo ma jiro markaanu in yar soconay ayaanu socod qabnay waan iska fadhiisanay duhurkii ayaana halkii ku tukanay markay casarkii tahay ayaan israacnay aniga iyo beergeel iyo naftii hore dhabuuke markaanu muddo soconay ayaan ciidanka afka uga galay oo xabad ayay nagu bilaabeen annaguna intaanu ku ridnay ayaanu dibdib uga baxnay sidaas markaanu u baxnay ayuu beergeel naga leexday aniga iyo dhabuuke beergeel koox ayaa geeso caadsatay aniga iyo dhabuukena koox ayaa na caadsatay ma ordi karno oo lugaha ayaanu qaadi laanahay waxaanu ku fiicannahay laakiin xagga qorax dhaca ayaanu aadnay oo shiishkoogu nama qabanayo waayo iftiinka qoraxda ayaa haya laakiin anagu waan shiishi karnaa markay in muddo aan daba socdeen 3 nin aan ka dilnay ayay naga hadheen markii aan socod gabnay lugaha xitaa waanu qaadi laanahay oonka iyo haraadka sunta baaruuda ayaa carabka naqalajisay labada nageys lama hadlayno oo sidii dhagoolaha ayuu miidaarayaa meel geeda hoostiisa ayaan fadhiisanay saaxiibkanagii nala socday ma hayno dhaawacanagiina waanu ka soo tagnay awood aan ugu laabanana oo ma hayno oo waanu socod gabnay murugo iyo niyad jab daal iyo haraad sunta baaruuda ayaa maankanagii bedeshay la soco qaybta 6